السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتا ku xiran barteena YouTube, Facebook iyo TikTok ba meel kasta aad joogtaan soo dhawaada waxaan halkan idinku soo gudbinaa warbixino caafimaad ayaamaha waxaa noo socday casharaan ama warbixino caafimaad oo taxana oo ku saabsan xanuunada ku dhaca jirka gaar ahaan xubnaha internal organska ama xubnaha gudaha maanta mowduuceena caafimaad wuxuu daaran yahay tonsillitis ama qanjir xanuunka waxyaabaha aynu isweydiin doono waxaa ka mid ah tonsillitis oo maxaa tihiin xagee ayay ku yaalaan maxaa keena xanuunada ku dhaca tonsillitis-ka calaamadaha leeyihiin ama lagu garto qofka tonsillitis-ka qaba sida loola tacaalo dawo la'aan iyo daawooyinka ugu fiican ee qofka tonsillitis-ka qaba qaataan horta tonsillitis-ku guud ahaan waa caabuq ku dhaca qanjidhada yaryar ee difaaca jirka kuwaas oo ka shaqeeya qabashada jeermiska kasoo gala weliba afka tonsillitis-ku waxa weeyaan horta waa xubno difaac ama waa qaybo ka mid ah unugyada difaaca jirka ee ku yaala weliba afka qaybta hunguriga gadaashiisa xagee ayay ku yaalaan tonsillitis-ku waxa weeye waa laba qanjir oo yaryar inkasta oo jirka meelo badan ay qanjidhadan yaryar kaga yaalaan laakiin qolooyinka tonsillitis-ka loo yaqaano waxay ku yaalaan dhabarka ama gadaasha dambe ee hunguriga throat-ka gadaashiisa iyagoo weliba labada dhinac ee hunguriga dambe ku kala yaala oo qayb midig iyo qayb bidix marka laba qanjir weeye oo halkaa marka aad garhka hoostiisa ama qaybta dambe ee dhagaha kasii hooseysa aad taabato aad dareemi kartid labada qanjir ee meesha ku jira waxaynu isweydiinaa waxaa ka mid ah tonsillitis-kan ama qanjir xanuunka waxyaabaha qofka ku keena horta waxa ugu badan ee qofka qanjir xanuun ku keena sida warbixinaha caafimaadku ay sheegayaan waxa weeye waa virus weliba fayrasadan sida hargabka keena flu influenza loo yaqaano ayaa kuwa ugu badan ee keena qanjir xanuunka waxaa kale oo keena bakteeriyada gaar ahaan nooc loo yaqaano streptococcus waxyaabaha kale ee keena waxaa ka mid ah nadaafad darrada qayb baa ka oo haddoona qofku ama cadayan oo kale ama afkiisa cuntadu ay aada ugu harhadho oo kale waxay toolay iyana waxa ka mid tahay oo afka iyo ilkaha iyo waxyaabahaas una qofku aada u cadayin iyaduna aakhirka bacteria ayaa meesha ku ururaysa hadhowna xanuun ku keenaysa waxyaabaha ugu badan ee dadkeena Soomaalida ku keena tonsillitis-ka waxa weeye waa qabowga iyo macaanka badan baraf buu qofku cunayaa weliba carruurta yaryar ayuu ku badan yahay carruurtii yaryareed dukaan bay aadayaan iskriin bay tagayaan jalaate cabayaan ice cream bay qaadanayaan labadu isku darsaday shay waana macaan waana qabow oo barafka ayaa ku badan marka qasab qanjihii way ku kacayaan waxa kale oo ka mid ah iyana difaaca jirka qofka haddii immunity-ga ama difaaciisa jirka uu hoos u dhaco waxaa aada uga faa'iidaysanaysa bacteria kasta oo meelaha ku nool inay hadhow ay saameyn ku yeesho ama ay meel kasta oo unugyada difaaca jirka ay kor u soo qaadajiyay ay saameyn ku yeelato calaamadaha ugu badan ee lagu garto qofka tonsillitis-ka qaba waxaa ka mid ah cunaha oo xanuuna oo labadaa qaybood aan kuu sheegaya xagga dambe inay casaanna yeelato xanuun badanna ay kugu samayso liqid oo kugu adkaata ama dhib kugu noqoto markaad wax kasta liqayso maadaama oo bararku isku soo dhaweynayo labadii qanjood oo hungurigu yaraanayo wax kasta ood liqayso oo weliba waxyaabaha buurbuurana inay ay ku damqaan waxaa ka mid oo kamida qandho badan oo jirka oo dhana tusaalehaan qofka markay qanjo xanuunayaan xumad saa'ida baa la gelinaya oo jirka oo dhan qofka xanuunayso mararka qaar marka cunihii yaraado kale codkii qofka ayaa isbedelaya aad ku garanaysaa waxaa kale oo taa kasii daran barar oo dushii hoostaba laga dareemayo waxaa kaloo ka mid ah carruurtu marka yaryar yihiin oo kale inuu afku ur sameeyo oo ur aan fiicnayn oo xoogay la dareemayo inuu qofkii uu sameeyo ay ku keento haddaba waxyaabaha kale isweydiinta mudan waxaa weeye qofku marka uu xanuunadan oo kale leeyahay dawan uusan doonin inuu qaato siyaabo loola tacaalo ama loogala hortago ama qofka qanjir xanuun kale lagula tacaalo waxa ugu horeeya inuu qofku ku luqluqdo maalintii 2 ilaa 3 jeer biyo diiran oo cusbo leh biyo diiran oo dhanaan weliba cusbo lagu daray inuu tusaalehaan uu ku luqluqdo waayo biyaha dhanaan xoogay meeshina way nadiifinayaan xanuunkina way ka yaraynayaan waana dawooyinka ugu fiican ee natural ahaan loogu daweeyo qanjir xanuunka waxaa kaloo ka mid ah inuu qofku markuu soo xabayo oo kale wax diiran uu cabo biyo diiran oo kale caanaha oo kale shaah diiran oo kale waxaa kaloo ka mid ah inuu qofku ka fogaado qabowga iyo macaanka
sidoo kale warbixinaha caafimaadka waxay sheegayaan qiiq oo kale qofka inaanu macnaha qof sigaarka iyo waxaas oo kale cabo. Qabowga iyo macaanku waa waxyaabaha ugu daran ee qofka u keena. Hadduu labadaas uu ka tacaalo ama uu iska ilaaliyo, inta xanuunkan uu dareemayana wax diiran uu cuno, cuntada, cabitaanka, wax kasta oo diirimaad ku isticmaalo. Iyaduna maxay ahayd hawley waa waxyaabaha lagula tacaalo. Waxaa kaloo ka mid ah inuu qofku intuu ganjuu xanuunaya wax yaroo jilicsan cuno, oo tusaale ahaan caano, boorash oo kale, maraq oo kale, waxyaabaha yar uu isticmaalo. Sababtoo ah markasta oo wax adag cuno meeshii bay sii damqaysaa ama nabaraantii, marka dhaawac bay u keenaysaa. Waxyaabaha kale ku darayaan warbixinaha caafimaadka waxa weeye qof xilliyada tonsillitis-ka qabo maadaama uu daal jirka oo dhan xanuunayo, garaac badan uu dareemayo inuu xoogay nasiimaa uu sameeyo si uu u soo kabsado. Haddaba dawooyinka ugu habboon ee qofka la siiyo haddii uu ka soo gudbo xaaladaas la tacaalidda bilaa dawada, waxyaabaha ugu badan ee uu isticmaali karo waxaa ka mid ah haddii waxaan uu fayras keenay horta uma baahna iyadu wax dawaa. Kuwa naturalka inuu cusbada yar isticmaalo, cunto jilicsan cuno, maxay ahayd hawley wax kastoo cunayo diirimaad ay noqoto. Haddii garaac uu ku farabato oo kale in dawooyin kasta paracetamol iyo ibuprofen iyo waxyaabahaas oo garaaca qofka ka yaraynaya uu qaato ayaa muhiima. Waxa kale oo jirta haddii ay bacteria waxan keentay oo meeshii ay bacteria jirto inuu antibiotic qaato, sida waliba penicillin V oo kale iyo amoxicillin iyo waxyaabaha la midka ah. Haddii uu dee sii cuslaatay oo kale dawooyinka injectionska ceftriaxone iyo waxyaabahaas ama augmentin oo kiniinada culus oo kale uu qaato. Iyo inuu maxay ahayd hawley sameeyo dawooyinka lagu lug noqdo maxay ahayd hawley ka samaysan afdhaqa oo kale ee loogu talagalay. Dawooyin waxaa jira loogu talagalay oo xoogay waxyaabo la isku dardaraya oo toothwash oo kale iyo waxyaabo noocaas ah loo isticmaalo oo acids iyo waxyaabo kale oo kala duwan ka kooban. Marka guud ahaan horta intaas ku soo gabagabeynaa, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye qofka tonsillitis-ka qaba totalis inuu ka fogaado wax kasta oo macaan iyo wax kasta oo qabow. Waa waxyaabaha ugu fiican ee qofka lagula tacaalo. Qof kasta oo mar ganjo ku dhacaan ama tonsillitis uu ku dhaco inuu ka fogaado waxyaabahaas. Ganjuhu waa waxyaabaha ugu daran ee qofka bini'aadamka ku dhaca, xanuunkoodu aad buu u daran yahay. Sababtoo ah marka ganjo lagaa qabto jirkii oo dhan baa ku xanuunaya, madaxii baa zaid kuu xanuunaya, waxba ma liqi karaysid, guriga baa ku bararaya. Mararka qaar dadka qaar baa cunaha bararku intuu xidhmo ayuu naqaska iyo kale qabanayaa. Markaas maadaama bulshada aad ugu badan tahay, waxyaabaha ugu badan ee keena uu macaanka iyo waxyaabahaas yahay. Carruurta yaryar oo kale markay gaadhaan da'da cadayga oo kale in cadayga iyo waxyaabaha lagula tacaalo. Qofka weyn oo kale ku dhiiso markasta oo wax cuno oo kale inuu cadaydo oo si aana ganjahaas iyo waxyaabahaas ugu kicin, maadaama oo nadaafadda ay qayb ka tahay in uu qofkii maxay ahayd hawley isticmaalo caday. Kolley dadka Soomaaliyeed waa dad iska nadaafad badan oo mar walba way ku dadaalaan cadayga, laakiin way dhici kartaa in waxyaabo yar ay kugu dhex raacaan. Gaar ahaan xilliyada kasta oo dadka cuntooyinka burburan oo kale cuna aad bay ugu fiican tahay in qofku cuntada amaba habeenkiiba waxaa ugu daran habeenkii mar kasta oo habeenkii wax cunto ilaahu bariis cun, hilib cun, waxaa doonta cun adigoon cadayn ha seexan. Guud ahaan intaasaan ku soo gabagabeynaynaa. Aad baad mahadsantihiin dhammaan akhyaartayda meel kasta aad joogtaan. Channelkeenu si fiican ayuu socdaa insha Allah, meel wanaagsanna wuu inoo marayaa. Intaa in ka badan way gaari doonaa insha Allah. Warbixinayna caafimaadna waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaysteen oo wax badan qofku uu ka taransado. Marka insha Allah meel kasta joogtaan waxaan idin leenahay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.